marka wax la yaab leh wuxuu dhiirigelin u yahay gobolada kale soo socda oo isku tashan doona haddii la yiraahdo waxaan isleeyahay waqtiga ayaa riixaya haddii aan ka tegay qaar taariikhda maadaama Soomaali fara badan ay joogto oo kala duwan meeshan waxyaabo gooniya oo dadka gobolka ka soo jeedin laakiin martida ka meeshan taabanaya ayaa jira marka ma rabo inaan galo laakiin waxay ku qoran yihiin oo qofku ka garan karaa caw documentiga aan soo sameynay oo aan filayo inay hadda cid walba haysato haddii saaxiibaday aanay iloobin inay dadka u qaybiyaan haddii aanay iloobin saaxiibaday inay dadka u qaybiyaan haddii aanay u qaybina fadlan u qaybiya marka intaas ka tagno asxaabtayda dambe ayaan sii doonaa gobol ahaan iyo SYL iyo wixii laga yidhaahdo waxaa iga dambeeya rag badan dumar badanna waa iman doonaa haddii ilaah yidhaahdo laakiin xafladda nuxurkeedu waxa in aan taageerno garab istaagno dhismaha maamulka cusub ee caw الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مدن يعني مروين هبه ونكسن وعن وآد مفرحة بريسو إن قبل كعول إنت أنا صومالي ميرو بكتي ما لندن أفرتي الجيش أنا قربنا إن تاجران قبل إن عاونوا يماذا فما شفتين مركوري ما شفتينا مركب لبعضنا وحواي وعافية وفق مركو مالي معنا إن هروسي وحلا وهو كهذا لها هي برنامج كذا كوكران تاني وحواي وحكوا دارها مركو كوري أنا قد ديار معي وحكوا إلى جرا منو هو غير لونتا يحنون إيسا waxaan rabaa in aan caawa idin weydiino intiinaan timaadeen oo gabdho wiilal odayaal dhalinyaro iyo akhyaarba iyo aqoonyahanna waxa waaye gobolka cawl inay taageertaan cawl waxa weeye gobol ma aha dowlad goboleed sida loo sheegay oo uu sheegay maxamuud ama ragga ka dambeeyay u sheegi doonaa laakiin waxa waaye oo kali ah gobolada Soomaalida ka mid ah waxaana gobolna wuxuu walay ii sheegay waxa la wixii facility ah oo lahaa gobol walay horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay wanaagsan marka labaadna waxaan idinka sugaynaa kulligiinba taageero dheeraad iyo weyn idinka sugaynaa gobolku waxyaaba uu leeyahay taariikhdiisa wuxuu saban waxaa la yidhi ninka aqoon badan kaana dhalinyar markuu hortaa hadlo waxaa la wixii aad sheegi leed hortaa waa ka dhumahay marka maxamuud ayaa iga horreeyey warka waana mahadsantihiin habeen wanaagsanaan idin leeyahay gobolkana soo taageera wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markale mar weyn iyo mudanayaal waxaan martamaha uga jirnaa caawa dabaaldegan aan u dabaaldegayno gobolkan loogu magac daray caaw oo ah runtii markii ugu horeysay 20 sano sidaan hore hadalka ugu yiriba 20 sano waxaa degiina fayaan ku soo dhacay ilaalaan marka caaw waa gobol marka gobol waa markii ugu horeysay gobol koonfur Soomaaliya gobolada kamida oo lagu dhawaaqo طبعا عاصمة قبل كنا وكرعت المجانين
وياهي برنامج كان هو سي سعودنا وحا إنه وجه دونتا ومرتدا إمكا يريا حسين شيخ عثمان سير إنه هكر نصوي سير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد مكر عن مجعلنا أنا فهم الله المقعة فوقابياشا حفلة ضمان ما تشرف كسوء عيب الشيء حفلة سيدة وقت وضع أي أصول بيان وحفلة إنه ورقة إنه الأكسدين فرحضا أنا عاو كنت أقول إنه قبل كعاو وهذا أوحي كان كتابيو قبل كعاو ما شاء الله كيف عاو عنها حتى يعني ضد حاجة مسكين عوشة حتى يعني برضو عارف أنا شايفهم عندي أقول لسه عاو أريد أن أقول تهي إن سبحان الله قبل كعوم وقبل تلفون وايد هذه تلفين ساقط الشجرة عاو ما تواجه بريه ما بكرم لكن أنا أنا في السوق هذا وحي الجمال ما له نوكر مرة عاو وحقوا أنا جفتي حرم إيران حقوا أنا جفتي وعلى سبتين وقت بميسي وحا قبل بواسطة الجروبي وحا أعتقد جري مارة قميسي أصلا أعتقد جري قميسي هو بدية ما أعتقد جري كمان ما أعمل فيش كمان ما أها قميسي هو حاجة بلا هي بلاد ضلوا حاجة قبل الصوب هيستوى حاجة قبل مصالح جرا ضلوا حاجة الصوب هيستوى قبل مصالح جرا وحاجة قميسي دي بدك كي مانع الطلياني وحاجة الإنجليز جرا ما تقبل 1925 1930 oo wuxuu u diyaar garoobay inuu dadka deegaanka uu ka celiyo dadka soo qadaraysanaya oo soo taagaya marka xarun weyn ah meesha lagu dhigay xaruntaas waxa hoostigi jiray 10 iyo 2 xarun oo kale hoostigi jirtay marka horta macnaha cawl uu ku dhisay waxa waaye waa hero waxa waaye macnihi marka waxaan dhihi karnaa cawl waxaan dhihi karnaa judge hilki oo waxaan dhihi karnaa msegway waxaan dhihi karnaa haddaan ka soo qaado for example dhacdooyinku waa bannaayeen intuu gumaysiga cabi waa bannayd intuu kuwa kale gudaha cabi waa bannaay haddaan ka soo qaado one occasion haddaan ka soo qaado waxaa jirtay in waqtiga talyaaniga gumaysiga waxay adag mareen aan intaan qaran waaye 1915 iyo مثلا 45 somewhere like that ciidamo soo wareer deegaanka waxay ka wateen 700 oo geeli ka wata meesha 700 oo geeli waxa raacay oo gaashaan ku daruuray ciidamadii ka tegay gobolka Cawla gaashaan ku daruuray طلب قبل بينا قال السعودي مثل السعوديين وحماشاس وحسين بيعالوا أهداف كمشي الدجان هذا يقول جاران إيش الباب شنو يكون جالسين بريشك ما يقول حا شنو ماشي يقول بحين تهدي شوية هاد بل على يقول ضغو وبين بنسافير هو هذا الدين في الشباب على يقول ضغو وبين بنسافير ساعات المرة أكثر ما أو وزك على صار معناه يا له أوكي ما هذا وزك على صار أو قادر اللي على يقول ضغو وبين بنسافير كشيء متعوقة يا الصومالي نعطي لنا عصو حمر وضحى يا الله لنا الدفاع عن البحر
dhinaca siyaasadda gobolku waxa waa la socotay hadda la sheegay ku dhignaay siyaasiyiintii Soomaalidu baadisay oo xurmada ku gaartay ku lahaay haddii loo qaybiyo dhibaat ay fog saddex Soomaali ahaayeen marka wuxuu ku lahaay gobolku kuwaadar ku lahaay waa afar dalood ee dhigis waay Soomaaliya dhinaca fasalaynka kama yiraahdo fasalaynka waxa waaye waxyaabaha oo maartay gobolka dhismihiisa iyo horta gobolnimada astaayra gobolka soo yaala waaye gobolku wuxuu leeyahay ranway hawaay aeroport weyn uu leeyahay oo diyaaradu ay ku soo degaan markii karaan dadka sanoo cusub gobolku wuxuu leeyahay deked dabiici uu leeyahay oo lagu dhafi jiray 1927 iyo maartay Afrika iyo Carab lagu dhafi jiray uu leeyahay gobolka isbitaalka ugu horeeyay waxaa laga dhisay 1961 iskuulka ugu horeeyay sidoo kale 1961 laga dhisay saad meelaha agtiisa warada wuxuu leeyahay guri mutuu leeyahay wuxuu leeyahay station police leeyahay dadka soo xiraayo guri wuxuu leeyahay marka waxaa dareemi kartiin gobolka aanu ma hadda u baxay laakiin wuxuu diray 1930 gobolku jiray marka gobolkaanu wuxuu ugu bedelan yahay gobolada hore wax kala la jira intaas aan sheegay wax kala sii jira wuxuu gobolada hore ugu bedelan yahay gobolada hore waxay ku dhisnaayeen beel iyo qabiil iyo jilb iyo laf gobolkaanu waxa waaye kuma dhisna qabiil jilb kuma dhisna wuxuu ku dhisan yahay deegaan waxaana keenaysa deegaankaas inuu ku dhisnaado ilbaxnimada waa ka horeeya gobolada kale waxaa dhammaan ka arkaysiin gobolku ma aha gobol oo sida laga sheegay state ma aha gobol goostay ma aha waa gobol gobolada Soomaaliya ka mid ah gobolka waxaa ka dareemaysiin inuu Soomaaliya ka mid yahay caalamka Soomaaliya uu sitaa tawaab jabiil waxaan ogtiin gobollo badan oo soo dhisay wax ka joognay waxay wataan calamo waxay wataan oo matalaya beesha wataan halkaan Soomaaliya matala waxaan inuu rol mo u noqdo ayaan rajaynaa dilahiya waxaan kaloo meesha ka sheegayaa gobolada waa batay websayda waxbaa ku aragteen nin kasta wuxuu iska soo qortay caalkii ciddi biyaha ka cad jirtay wuxuu soo qortay geljibcihii meesha ku dhugi jiraan wuxuu iska soo qortay xawahay abkow meesha ku samaanin gobolkaas intaas ma aha yaanu ka soomin goboladaas ku jiro waa gobol ka yaqaan waay intaasaan kusoo gabgabaynaya mar labaad waa maasantiin